soo dhawaada saaxiibayaal waxaan rajeynayaa inaad caafimaad qabtaan kahor intaan muuqaalkeena bilaabin haddii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe sheertan ha ilaawin laagtan waxay ii tahay dhiirigelin aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin filimkeena qiibtiisa labaad wuxuu ku bilaamayaa Aasha oo la hadlaysa gabar maamulaysa xafiiska shaqada taasoo magaceeda la dhaho Sojiin waxay aad ugu maseeraysaa Aasha oo maalmahan aad ugu soo dhawaanayso maamulaha shirkadda ee John intaas kadib Sojiin waxay Aasha ku leedahay waxbaha faraxsanaan madhow shaqada waa laga ceerini doonaa wax farxad ahna kuma taalo maalintii xigtay Aasha waxa la barayaa gabar cusub oo maamulo ka noqonaysa xafiiska shirkadda taasoo lagu magacaabo Hayuun intaas kadib subaxii xigtay waxaan arkaynaa John oo fadhiya xafiiskiisa kana fikiraya Aasha waxa uu soo galaya caawiyihiisa shaqada wuxuuna leeyahay maalmahan isbedel ayaa ka muuqdo jacayl miyaa ku galay gudaha shirkadda xanta adiga iyo Aasha ayaa ku jirta ayuuna leeyahay Aasha haddii aad u hayso dareen jacayl u sheega ayuuna raacinaya hadalkiisa John ayaa ka xanaaqay hadallada caawiyaha shaqada wuxuuna ku dhahay araggaaga iga qaray oo ka tag horteeda intaas kadib xafiiska waxaa soo gasha Aasha iyo Hayuun oo ah gabar ku cusub xafiiska shirkadda John ayaa aad uga helaya labiska ay xiran tahay Aasha si dareen ku jirta ayuuna u fiirinayaa kadibna John wuxuu aad u amaanayaa Hayuun wuxuuna ku amaanayaa labiska iyo habka wanaagsan ee shaqada ay u wado John labadooda si wada jir leh ayuu u amaanayaa shaqada ay hayaan intaas kadib Aasha ayaa aad u dhool cadeynayso Aasha ayaana ku dhahaysa mudane waad mahadsan tahay sida ugu fiican ayaan shaqadeena u qabsan doonaa maalmo kadib shirkadda waxaa soo booqanaysa John hooyadiis taasoo ogaanaysa habka shaqada loo wado intaas kadibna waxay arkaysaa cunno kariyaha shirkadda oo dharkiisa wasaq ku halaysan wayna ka xanaaqaysaa arrinkaas dhanka kale John wuxuu ka fikirayaa inuu Aasha fariin u diro una sheegto dareenkiisa jacayl ee uu baryaan ka seexan waayey intaas kadib John fariin ayuu u dirayaa Aasha balse kama aysan soo jawaabin fariintaas maalintii xigtay Aasha ayaa soo galaysa xafiiska John iyadoo wada dukumiinti ku aadan shaqada John wuxuu ku dhahayaa Aasha fariimeyga maxaad iga soo jawaabi weysay Aasha waxay leedahay fariinteeda inaan kaaga soo jawaabo waxaa ka horeysa inaad lambarkayga hayso John ayaa ku jawaabaya lambarkaaga waxaan ka helay dukumiintigaaga shaqada aad ku soo codsatay sidoo kalena wuxuu leeyahay kaarka aad u jeeda ayaan caawa qaadan doonaa labadeena casho ayaan aadi doonaa kadibna Aasha waxay leedahay maxaad iga baahan tahay aniga John wuxuu leeyahay caawa casho ayaan aadaynaa waan soo cunteynaynaa casho miyaad dhahday ayay leedahay ha ayuuna ku jawaabayaa John wuxuuna u raacinayaa safarkeenii hore aan soo wada qaadanay aad baan ugu riyaaqay nafis ayaan ku dareemay oo kale ayuu leeyahay intaas kadib Aasha waxay leedahay ma rabo inaan ku raaco raacidda aan ku raacayo dhib weyn ayaan ku qabaa intaas kadib John ayaa ka xanaaqay hadallada Aasha kadibna goobta ayuu isaga tegayaa maalintii xigtay waxaan arkaynaa John oo fadhiya xafiiskiisa shaqada saaxiibkiisu Guwaan wuxuu tusiyaa sawirada isaga iyo Aasha ay wada galeen intaas kadib Guwaan ayaa tala ahaan u siinaya John inuu u sheegto Aasha dareenka uu qabo maalintii xigtay John iyo saaxiibkiisa Guwaan waxay imaadayaan goob xaflad ah John ayaa si lama filaan xafladda ku arkaya Aasha si dareen ku jirto ayuuna u fiirinayaa wuuna ka farxayaa aragtida Aasha si kastaba ha ahaatee markii uu gudaha soo galo John wuxuu arkayaa si lama filaan ah shaqaalihiisa shaqada oo xafladda wada joogaan John si degdeg ku jirto ayuu ugu baxayaa qolka kadib saaxiibkiisa Guwaan ayuu weydiinaya waxa ka socda meesha intaas kadib John iyo saaxiibkiisa ayaa ku soo laabanaya gudaha qolka Aasha ayaana ku dhahaysa maanta aniga ayaa marti ii tihiin casho ayaan idin diyaariyey dhammaantoodna ay ku farxayaan sida qurxoon ay u soo dhaweysay Aasha maalintii xigtay Guwaan wuxuu u sheegay saaxiibkiisa John in labadooda lagu casuumay xafladda dhalashada Aasha John ayaa hadalka saaxiibkiisa iska natiray xafiiskiisa ayuuna ku soo laabtay maalmo kadib waxaa kulmaya Aasha iyo saaxiibkeed Siyu wuxuuna u soo bandhigay guul labadooda ah Aasha ayaa si xanaaq ku jirto ku dhahday ma doonayaa inaan sameeyo wax xiriir ah Aasha ayaana halkaas ka soo tagtay iyadoo fadhisa meel uu roobka da'ayo ayaa waxaa u imaanaya John oo dalad wata intaas kadib Aasha ayuu ku dhahayaa kaalay roobka kaga dhumo daladan si naxariis ku jirto ayuuna laabtiisa u geliyey Aasha waa ay xishootay waxayna dhahday waan baxayaa isagana wuxuu dhahay halkee ayaad aadaysaa kadibna waxay ku jawaabaysaa gurigeyga ayaan aadan ayaa ka soo daba orday Aasha wuxuuna dhahay aniga ayaa gurigaaga ku geynayo sidan kuma fiirsan kari labadooduba ay soo raaceen gaariga dhexdiisa ayayna waqti ku qaateen markii la gaaray guriga Aasha John hadiyad ayuu siiyay Aasha wuxuuna dhahay hadiyado badan ayaa iga diiday midaan inaad iga diiddo ma ahan waa inaad iga qaadataa hadiyadan intaas kadib Aasha ayaa hadiyadii qaadatay hadiyadda uu siiyay Aasha John waxay ahayd dhar aad u qurux badan maalintii xigtay Aasha waxay soo xirtay dharkii hadiyad ahaanta loogu keenay intaas kadibna waxay aragtay John waxayna isku fiirisay labada dhar ee kala wataan inay isku eg yihiin iyo in kale kadibna waxay ogaatay labada dhar inay isku eg yihiin waxayna go'aan ku gaartay inay iska soo bedesho dharka balse waxaa gacanteeda qabtay John wuxuu weydiiyay halka ay u socoto Aasha ayaana ku jawaabtay labadeena labis waa ay isku eg yihiin dadka haddii ayna arkaan si kale ayay noo fahmayaan waan iska soo bedelayaa dharka ayay dhahday intaas kadibna labadooda goob casho ayay wada imaanayaan kadibna gabar sawir qaadaha ayaa sawir ka qaadayso waxayna ku leedahay labadiina waad isku soo baxaysaan laba lamaana ayaa tihiin kadibna miiska ayay saaraysaa sawirada ay ka qaaday labadooda
intaas kadibna Aasha waxay imaanaysaa kaashiyerka lacagta lagu bixiyo waxayna isku dayaysaa inay dhiibto lacagta cashada balse si lama filaan waxay ogaanaysaa cashada ay wada cuneen labadooda inay qaali tahay wayna ka naxaysaa arrinkaas maadaama Aasha ay ka soo jeedo qoys sabool ah kadibna John ayaa dhahayo aniga ayaa bixinaya lacagta ee iska dhaaf labadooda gaariga ayay soo wada raacayaan kadibna Aasha gurigeeda markii la soo gaaro John gaariga ayuu joojinayaa Aasha iyo John labadooduba ay ka soo degayaan gaariga John ayaana hadiyad siinayo Aasha ayaa ku farxaysa hadiyada John wayna dhoola cadeynaysaa kadibna si lama filaan goobta waxaa imaanaya Aasha saaxiibkeeda yaraanta oo Aasha hore guri ugu soo badhisay oo Aasha saaxiibkeeda yaraanta wuxuu dhahayaa Aasha waxa guurka iga diiday ilaa nin kale ayaad la socotay miya intaas kadib labadooda oo murmay waxa goobta imaanaya John ayaa weydiinaya Aasha wuxuu leeyahay Aasha yuu yahay qofkan Aasha ayaa ku jawaabaysa iyadana saaxiibkeedii yaraanta waaye Siyu ayaa ka xanaaqay hadalka John wuxuuna u fahmay hadal iyo sid ku jirta inuu yahay hadalka uu ku dhahay John intaas kadib Aasha waxay wacaysaa booliiska si loo xiro Siyu ayaa si lama filaan telefoonka ugu qaadaya Aasha wuxuuna leeyahay yaad wacaysaa waxayna ku dhahaysaa waxaan wacayaa booliiska dagaal ayaad sameynaysaa Siyu ayaa ku jawaabaya aniga dambiile ma ii intaas kadib Aasha gurigeeda ayay galaysaa iyadoo aad u xanaaqsan John ayaa si lama filaan Siyu gacanta ugu qabanayo wuxuuna leeyahay mar dambe haddii aad ka xanaajiso Aasha xabsiga ayaa cimrigaada ku qaadanaysaa intaas kadibna Aasha ayaa furaysa hadiyada uu keenay John aad ayayna ugu farxaysaa hadiyada keeka ee loo keenay kadib fariin ayay u diraysaa John Aasha ayaa aad ugu mahadcelinaysa John waxa uu iyada darteed u sameynayo maalintii xigta waxaan arkaynaa John oo ku jira shirweynaha shirkadiisa suuliyiinta ugu weyn shirkadda waxay ku dhahayaan John shaqadu waa inaad ka celisaa Aasha sida ay wax u wada anaga kuma qancin intaas kadib John wuu xanaaqayaa hadalladii mas'uuliyiinta ayuu ka xanaaqayaa goobta shirka ayuu isaga soo tagayaa wuxuuna ku soo laaminayaa xafiiskiisa wuxuuna la soo baxaya sawirka isaga iyo Aasha ay wada galeen intaas kadibna John wuxuu arkayaa fariin uu diray Aasha inay fariintii akhrisay uuna ku farxaya arrinkaas qoraal ayuuna u qorayaa wuxuu leeyahay waqti ma haysaa si aan u wada kulano labadeena balse fariintaas looguma jawaabin uuna xanaaqayaa maalintii xigtana wuxuu arkayaa Aasha wuxuuna dhahayaa fariinteeda maxaad ugu soo jawaabi weysay Aasha ayaana ku jawaabayso waan ka xumahay garana noqo ayana leedahay teelkayga gudaha gurigayga ayaan ugu soo tagay kadibna John ayaa ku dhahaya caawa casho ma ii raacaysaa waxayna ku jawaabaysaa waqtigayga waa mid qaali ah Jaanis ma haya aniga subaxii xigtana John xafiiskiisa ayuu imaanaya wuxuuna maqlayaa Aasha inay shaqada saaka imaanin kadibna isagoo murugaysan ayuu wacayaa Aasha wuxuuna ku dhahayaa saaka shaqada ma aadan imaanin sida ugu dhaqsiya badan uu imo Aasha waa ay ka diidaysaa sababtoo ah cimiladu aad u xun awgeeda Aasha ayaa si lama filaan ula kulmaysa dabeelo aad u daran buurta ay ku socota ayayna ka dhacaysaa kadibna John ayaa si lama filaan u soo badbaadinayo Aasha maalintii xigtana waxaa la gaaray John dhalashadiisa waxaana goobtaas imaanaysa John saaxiibtiisa iskuulka ahaayeen waxayna la tigrinaysaa John ay uga hambalyeynaysaa maalinta dhalashadiisa balse ficilkaas waxaa ka maseerayso Aasha kadibna gurigeeda ayay ku soo laabanaysaa saaxiibadeeda waxay ugu sheekeynaysaa waxa ka dhacay xafladda intaas kadib John ayaa imaanaya guriga Aasha isagoo u wada hadiyad qaali ah wuxuuna ku dhahayaa maadaama xafladda dhalshadeeda aadan ii keenin wax hadiyad ah taas bedelkeeda aniga ayaa kuu keenay hadiyad saaxiibada Aasha aad ayay ugu helayaan hadalka John Aasha ayaa hadiyada qaadatay iyadoo qanacsan kadibna waxaa la gaaray xilligii uu soo bixi lahaa John banaanka ayayna isku soo raaceen intaas kadib mooto ayaa si xawli ah ku soo socoto John ayaa si lama filaan u badbaadinayo Aasha John wuxuu dhahayaa naftaada ayaa ii muhiimsan inay wax ku gaaraan aniga marabi maalintii xigtana John Aasha wuxuu ku wareejinayaa feelal ay ku qoran tahay waxyaabaha ku saabsan shirkadda ganacsigeeda John intaas wuxuu ugu dalneeyay sidii uu ku soo jiilan lahaa Aasha ayaa ka mid noqonaysa shirkadda sanadlaha ee uu John maamulo ka yahay warbaahinta ayayna la wadaagaysaa ganacsiga shirkadooda inta ay wareysigaas wada John ayaa imaanaya goobta wareysiga ka socdo sidoo uu ugu ogaado xaalka halka uu marayo kadibna Aasha ayaa bilaabaysa ka hadalka ganacsiga shirkadda waxayna dhiirigelin ka qaadaysaa imaanshaha John subaxii xigtana waxaa imaanaya gudoomiyaha shirkadda ahna aabaha dhalay John wuxuuna ka hadlayaa sida ay shaqada u kala socoto intaas kadibna John ayaa soo baxaya wuxuuna arkayaa Aasha oo habeynaysa miisaska shirarka kadibna John isagana dhinaciisa ayuu ka habeynayaa hawsha Aasha ayaa aad ugu naxaysa ficilka uu sameynayo John maadaama Aasha aysan ugu baran John inuu qabto shaqooyinka yaryar maadaama uu ka soo jeedo qoys bilyaneer ah John wuxuu ku jawaabayaa Aasha isdaji tani waa mar kaliya aan miiska saarayo wax weyn uma arko maalintii xigtana gudoomiyaha shirkadda ayaa saaxiibkiisa lagu magacaabo Samiir wuxuu u sheegayaa wiilkiisa John inuu horumar badan gaarsiiyay shirkadooda intaas kadibna John wuxuu wacayaa Samiir wuxuuna u sheegayaa inuu hayo hotel iib ah haddii uu iibsanayay in kale hotelkaasna waa mid shirkadda laga maamulo subaxii xigtan shaqaalaha hotelka waxay soo dhaweynayaan Samiir wuxuu dhahayaa dhoola cadeyn hal igu soo dhaweeyo maxaa waaye wajiyadan murugaysan Samiir kadib wuxuu arkayaa gabar aad u dhoola cadeynayso una dhalaalayso quruxda gabadhaasna way soo jeedatay Samiir intaas kadibna Samiir wuxuu Aasha ku dhahayaa jijintan iyo xir kadibna John ayaa midaas ka maseerayo John ayaan u xirayo jijinta maalintii xigtana Samiir wuxuu ku balminayaa Aasha iyo John cashada Samiir wuxuu si aad ugu helayaa Aasha gabadha lagu magacaabo intaas kadib Samiir ayaa bilaabaya inuu labiskiisa bedelo si uu u soo jiito Aasha la socota xanaheena qaybtiisa labaad oo aan dhawaan soo gelin doono
waana ku mahadsantihiin qaabka wacan oo aad inoo daawanaysaan waqti walba waan idinkaga mahadcelinayaa saaxiibayaal